sababtoo nin baan maqlay maalin dhaweed halkaa xisbi cudba la dhaha iyo haystaa la yiraahdo maxay aad tira aan magacaad u sheegtaan ayaa wuxuu lahaa extermination baa lagu sameeyay dawladii Maxamed Saad Barre extermination ma garanaysin ya genocide iyo extermination waa la dabar gooyay way xagee dadka yimaadana dib dabar gooy wala dabar gooyay macnaheedu waa maxay waxba laga reebin weeyaan faqad adab alqawm alladina dhalamu wala dabar gooyay way extermination wala dabar gooyay way genocide na xasuuq baa dhacay wala waxba ha hadhaane markaas wuxuu ku dacweeyay ninkaas genocide la oranine extermination hal nagu qoro in dawladda Maxamed Saad Barre na dabar gooysay Istanbul buka iyo ka hadlay shirkii lagu qabtay ugu dambeeyay hadda ay ka soo noqdeen naga Maxamed maxay bixi Yunus la raadiy هو على الرحمر إن لو قوي دم بعد دبر قويسينه قانت هذون بحية سدي يهود هذا هولوكوست وحقوق قادته هالكاسة ملا تهرعيا هولوكوست ما تقنن يعني وحن يهود عالم كيوروب يا أمريكا كي كل عضو أنا أقول والله نحسوقي هم لا ينحسوقي وهو البقاء تآمصة وحن سألوا حسابي إلى المتعلم بانا يودك أنا وين شوقي أنت وايو qoladii u fal loo jiray ugu horeysay ee laga xiray SNM-ta ka hor inta waxaan SNM la soo bixin qolo u fal leedahay ka horeysay ana jeelka Hargeysa bay igu yimaadeen iyagoo la soo xiray ana jeelkaas ku jiray ana diinin baa lagu xiray jiray qoladaasi koob iyo 80 aan isku nimadnay jeelka ayaa ugu horeysay u fal loo jiray laga soo bilaabo u fo ilaa koob iyo 90kii markay wadanka qabsadeen ay ku gabagabeeyeen xasuuqii Boorama wixii laga laayay iyo hal habeen oo 6 iyo 10 saacadood ay Boorama iyo dala ku jireen yaan isku xisaabiyay ma dad xisaabtamayso 6 iyo 10 saacadood ma aanu ka sheekeen ma dadkii kale lagu laayay dagaalada ee dagaal wadanka gabigiisa jabhadu galiyeen laakiin waxa ka warramaya xasuuq waxa la raaa ummad shicib oo iska degan oo loo yimaado aqalada lagu laayo naagta la dilo ilmaha la dilo odaga la dilo sheekha la dilo oo maxayga la dilo oo bacmisarka la dilo taasi Boorama bay ka dhacday meel aan dagaalamaynin oo inta la iska soo galo oo waliba ciidankii Mingiste jiibkii u horeeyay anu toortaasan ku taagnaa muxuu ahaa Sheekh Ali Jawhar ee qalbiga jiibkii ugu horeeyay halka dhaqtarka markuu hormarayo gaarigii ninkii loo jiray Allah naxariistay meeyarka ahaa Maxamed Xasan Maaful oo caruurtiisa iyo dumarkiisa oo dhan ku jiraan ayuu ka daba tago waa halkan biyaha shaaba marka la hormarayo ayuu ku dhiftay madfac reerka halkii ku dabar go'ay mala ina yar baa ka baxday iyo wax maartay waxa magaalada soo galay waxay laba ciidankii Mingiste oo dabaabadii jibabootay iyo SNM-ta labadaas isla socday subaxii 8 anu buurta mar habeen ka dhan ku taagnaa ila magam ay soo wadneen naftina halkan bay timid moogtay balaqat alqulub alhanajir biya malaka karto dad biya ka bato wallahi halka ma dhaafayaan qofka markay cabsidu ka badato iyo dhibaatada ila moogtay kolka halkan ka marto ee kan agtaadu dhintay ee meedku ag yaal خلاص habeenkaasaan xisaabiyay kolkaas aad soo raadiyay 764 qof ayaa dadkii ugu dhawaa ay maartay sheegeen ragii waliba tirinaya ciidamada ah 764 kolkaan u qaybay 6 iyo 10 saacadood saacadiiba 8 iyo 40 qof bay dilayeen magaalada maartay saacadii walba 8 iyo 40 qof limaada kuwa xisbada haysta kuwa wasiirada kuwa maxayga ah walana la yidunhay waruux Soomaali islaysay hay Soomaali islaysay oo waliba jabhadu gardaraayeen ila dawlad dhan oo Soomaali loo jiray taariikhda ka tireena oo imka si loo keenay la garan laayay nin alla meel laga keenay imka dawlad Soomaaliyeed baad ku filaysan Soomaa inta cirku inoo jirta dawladdaas xagga Ilaahay aanu kuma darin laakiin kolka eegto siyaasiyan sida Soomaalida loogu talagalay reer galbeedka hatta carabtana ku daro bulcada hatta carabtana ku dar caalamku maanta wuxuu go'aansaday in wax Soomaali la raadaay dib dambe dawlad loogu arag laakiin ay noqoto
wax amal barasaabyo oo kol jigjiga looga yeero kol la maartay adsabo looga yeero la yar madaxa loo yaro weynayo adsabo looga yeero leenka adsabo imka looga yeero inaga waxa weey nin aad loo maamusay Nairobi iyo kol kale nooga yeero madaxdeena loo yeero waa dad la maamusay ila abaygo lidalik harayba bari hore halkan uga yiri war Soomaali way saamaxday nin walba meedkiisu iloobay أنا ولا شيء فوق استانك هرجيسة ولا laga soo baxaya ayaa lagu dilay kolkii ninkeedina la dilay iyadoo foolo 9 bilooda ay macallimiin caloosheeda ku jiray fooshay ayaa halka ku dhintay walaalkii halkii waxay ku dileen xaggan hoose buurahan bay ku dileen wala hadana waxba kama soo qaaday waa Soomaaliya islaysay fitna dhacday laakiin dhacdo wala xasuuq idun hadan hayo ceeb weeyaan Soomaali midnimo kama maarnayso hadda halka istorka gargaar la yiraahdo Hargeysa waxa ku yaala istaanka garow looga baxo ma ku yaala mise kuma yaala halkan waxa ku yaala istaanka jigjiga looga baxo Soomaali ma cidii doonto raaysa Soomaali soo isku dhex socono waligeed kala go'ay mayso cidii si noolata ogaato ciyaar ma waxaan dii sheegayaa سؤال يرو قابن بان أود فهمتان بان يدكو السين كل إنه لبا كوي صدق كوي سنة دسبا وقادنا إمكان إن مريكا كي يربو دوفين إنه إن بنت الشيء إنه إم الصاحبين والبي أرمى دا سوق الشا ما الله سعطان بورا ما شيء هذا ما الله سعطان أنت هبين والبي أرمى سوق الشا مثلا بورا ما بدك كل كلو مار سوق أضف فرصته إلى المعنى والبي دمر عصبة يماد عرور عصبة تماد تقريبا هبين والبا لبا تنقيس way soo gashaan oo isjiidanayo oo deena waa masaakiin bananaay socda ayaa soo gala mara dir dabal la raayay lahaan jiray maanta sayaale ma la socotaan dir daba Soomaali baa lahaan jirtay maanta Oromaale maantana Oromaale ahmad midib male boqolka sano soo socda ma ku sano soo socda boora ma inay noqoto magaalo Oromo هذا المال دلنيار تانو الشيء سوكر يصير مستقبل بان هيكسن الناله مستقبل كهدو يهاي كيوروب يدو يا عيسان أنا كجواب ماي وباب كله لكن هذا مستقبل كيهاي الصومالي إن أتاي الدولة يلون دونتو أدور كان يلون دونتو أدور الشركة سميسان دونتو سيدا مان تانو نالله مايا ولي جدنا لو قاري ماي على أي حال وعنو جدا هدين لقد دين وايو ولا نلايده لين تدبتي بالشيك هل هبين لح تدور بقول إيه لح أفري لح دمر إيه عرورية مساكين إيه بعمشتر وهنتو دين اللقاطين بقول مليون واحد كبدن هل كان أجرتها لكن يا الله يود الدماء سياسي دي وفجقات فجوت هرجيسة كيد بدأ تجي سيدا قليها كلو قليها أنا ما قليها غير بورمو قبيلتكم كلا صاع كندا دحدة هي أمريكا كدحدة أنا أريه بري أنا أنت أصلا كشقين هدان كده برسنان نو بحكي لما نقام ما أورن كريان حتى أمنس انترناشنال أنت وتجان أما قالوا ده هيومن رايتس واتش إلى إيران تاريخ ده واحد جرتها بيانو أنت سوقف لو قد المال عين كاس ما أورن كريان على أي حال وعلى رجع جيسكن نعناع هيا هلا حساب تمو ولي أنا أرى الشباب حكوري محمد سدياب برية رجين كيسي دمان آخره تجين نكال الدعوية لكن أنا كوي هالك وحكل لاي وزير هذا هذا الجوجا ويان كي ولي هذا كله جامني إيه بكره وزير قررنا وحصل لي يابلها كوي تكنيك كذا وضع ميت كمية يا بيك ده كليني مركي الله كيري طريق قبل لقى صور دقي إيه ده مركينا قرتين نمونا كيا هاي لا يابلوي على أي حال Soomaalidu waxa looga baahan yahay inay waxa ka koraan aanu imika qabiilada kuma tirtirsiinayo waa se idinka tirtirsiinaya ka Hargeysa ka hadlayo oo kale
aragtidiisa anu ma qabo anu waxaan qabaa aragti Soomaali ah Soomaali ila NFD ila Djibouti anu wali shantii uma rumaysana shantu waa isku hooyo waa isku soo hiloobaan ayaa lagu heesi jiray bari shantu waa isku hooyo waa isku soo hiloobaan markana maxay oran jireen nin lagu saddexdii maqnaadana way soo socdaane nin lagu seexdo ha seexan soo jeedo si weyn u foojugnow waxaas ma hees bahed mise waxayd murti idinku waxba kama garanaysaan maanta wallaahi billaahi maanta idinka qofka Etoobiyaanka ama Kenyaanka ama Sangulida ka sii shashaysa ayaa wax walba kala qaalisan laakiin Soomaaligu saas uu eegi jiray waxa jira odayaasha Ingiriisku qortay looran jiray timacada looran jiray ee ciidamadii dagaalkii labaad inay raad Sangulida hanagu darin aaniyo hilib waxaan ma cunano kasaafahan iyo waxa jeesay arab khidiyo ma cunno yiraahdeen saas dadkeed ciidan gaar ay haayeen laakiin iyagu maanta waxaan ogahay inanka jaamacadda ka soo baxay masterate-kii inuu yaro keenayna salada u qaadayo oo lan kuruuska ka saarayo waayo midna gaar buu ka yahay midna waa turjumaan midna waa darawal intaas aan u qaybsanay